ciidamada difaaca Tigreega oo ku guda jira howlgalkoodii la magac baxay iftiinka waaberi ayaa sheegay intii u dhaxaysay 25kii bisha Naxaase ilaa 30kii bisha Naxaase 2013 inay dagaalo xoogan ciidamada hubanta ah ee Abiy ku dhaxmareen waqooyiga Gondar agagaarka magaalooyinka u dhaxeeya Dabarq iyo Daabate kala ah Wuqen, Waluqen, Mikhayle Maryam iyo Wallo Maryam. Dagaaladaas oo ay ka qayb qaateen bay dhaheen guutooyinka 24aad 31aad 101aad 102aad 51aad 52aad 53aad iyo 54aad oo isugu jiray militariga Abiy ciidankii milmilka ahaa ee dhawaan soo qori jabiyay ciidanka xoogga gaarka ah ee deegaanka Oromada oo hal guuto oo 103aad ah la iskaga dhigay maleeshiyaadka iyo liyuga Axmaarada oo ay weheliso kooxda Faano. Waxayna ciidamada Tigreegu sheegeen inay guulo laxaad leh ka gaadheen dagaaladan toddobaadka tooska uga socday agagaarka magaalooyinka Gondar ku teedsan halkaas oo ay ciidamada Abiy kaga dileen 10,520 askari kagana dhaawaceen 14,500 oo askari halka ay nolol ku qabteen 164 askari isla markaana ka furteen 52 bareem 6 dhashiike 60 aalada xidhiidhka ee radioga ah hub fudud iyo rasaas aan cadad lahayn oo mashaqo ah. dhinaca Maarsana wuxuu command postiga ciidamada difaaca Tigreegu sheegay inay ciidamada difaaca Tigreega dagaalo lagu hoobtay iskaga hor yimaadeen agagaarka magaalooyinka Faji, Milyonis, Arena, Babomsa, Bistima, Basamile iyo Wuchale. guutooyinka 12aad 13aad 61aad iyo ciidamo aan hanaansanayn oo isdhaxyaac ah oo isugu jiray liyu boolis maleeshiyo iyo Faano oo ka soo jeeda deegaanada Axmaarada iyo Oromada iyadoo dagaaladaasi socdeen bay dhaheen intii u dhaxaysay 29kii bisha Naxaase ilaa 2dii bisha Baagume 2013 halkaas oo ay ciidamada difaaca Tigreegu sheegeen inay ciidamadaas habqanka ah iyo militarigiiba kaga dileen 1340 askari 1040 kalena kaga dhaawaceen dhowr iyo 10 ay nolol ku qabteen halka hubka ay ka furteenna uu tirabeel ahaa oo dhashiike iyo bareemo badnaa. ciidamada difaaca Tigreega waxa kale oo ay sheegeen isla dagaaladan dhinaca Maarsa ka dhacay inay ka talaabo qaadeen cutubyo ka mid ah guutooyinka 11aad 22aad 30aad iyo 52aad oo rabay bay dhaheen inay magaalooyinka Siringa, Sanqa iyo Dembil ka jaraan Waldiya kuwaas oo 603 ka mid ah ay dhimasho ku hubsadeen halka 425na ay dhaawaceen tobaneeyo kalena ay nolol ku qabteen. waxay intaas raaciyeen in kowgii bisha Baagume 2013 dagaalo ka dhacay Harosodoma magaalo la yiraahdo oo dhanka galbeedka wala xigta inay ciidamada difaaca Tigreegu sheegeen inay ciidamo aagaas dhufaysyo ka qotay oo kala daadsan oo isugu jiray guutooyinka 23aad 25aad iyo 27aad oo ciidamada deegaamada Axmaarada iyo Oromada ka koobnaa inay dhabarka kaga yimaadeen halkaasna kaga dileen 2,000 oo askari 2,500 oo kalena ka dhaawaceen halka 12 ay nolol ku qabteen meesha ay dhammaan dhufaysyadii jabiyeen saldhigyadii iyo wixii hub saanad iyo gaadiid ciidan yiilayna la wareegeen. dhinaca Dabrazabitna waxay ciidamada difaaca Tigreegu sheegeen inay ciidda ku dareen guutooyinka 33aad 34aad iyo cutubyo ka tirsanaa guutada 54aad oo ay wehelinayaan liyuga Axmaarada ee gaar ahaan Balay Zalaqe iyo Magdala Dajan la magac baxay oo ay ka dileen 4,035 askari kana dhaawaceen 6,425 askari iyagoo ka furtay hal taangi oo noociisu yahay T72 hal BM21 hal Zu-23 iyo hub fudud oo tirabeel ah. isku soo wada duubo dagaaladan toddobaadkii u dambeeyay ka dhacay agagaarka waqooyiga Gondar, Maarsa iyo Dabrazabit ayaa ciidamada difaaca Tigreegu waxa ay sheegeen inay wadar ahaan ciidamada Abiy kuwa Axmaarada iyo Oromada kaga dileen
kagana dhaawaceen 43,393 askari halka ay 195 nolol ku qabteen.